فهيمة يوسف قوشة oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa hadda khadka telefoonka si toos ah ugu jirta Fahima adiga ayaa telefishinka Hoonkiiba la soo xiriiray maxaa soo kordhay waan ku salaamayaa xasan galeedo walaal ana la soo xiriiray TV-ga Hoonkiiba TV waxaan doonayaa inaan caddeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama deegaankii aan ka soo jeeday ee Sool Sanaag yahay gaar ahaan degmada Laascaanood in xubintii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ee muddada 8 sano ah aan ku metelay shacabkayga aan baneeyay marka xildhibaan maxaa kugu kalifay xilligan in aad ka tagto xubinnimadii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ee muddada 8 sano aad ka tirsaneed xasan waa mahadsantahay walaalo waxa igu kalifay horta gobolka Sool ama degmada Laascaanood anigu waxaan ahaa xildhibaanadii golaha deegaanka ku metelayay Sool hadii ay tahay Somaliland walaalo arrimo siyaasadeed oo badan baa jira falfal siyaasadeed kursiga aan ku fadhiyo waxa aan ku metelayay shacabkii degmada Laascaanood ama SSC ba aan dhahay oo codkooda ay siiyay waxaad moodaa bariyahan siyaasadii Somaliland sidii Muuse Biixi uu yimi in khalkhal siyaasadeed dalka ka jiro oo shacabkii iyo xukuumadii ay si kala fogaanayaan mar ka dambaysa mar walba anigu waxaan ku hadlaa afka ama dareenka shacabkayga oo aan iyaga ka metelayo waxaan ku qasbanay wixii ay doonayaan iyo wixii ay diidan yihiin bayna anigu ahay mikrofoonka shacabka taasina ma suurtoobayso in qofku isagoo ku fadhiyo codkii shacabka uu hadlo kama suurtoobayso maamulka Biixi marka waxaan go'aansaday anigoo banaanka ka jooga oo xubintii lagu hoos mareysay maamulka Somaliland aan baneeyay mar walba aan ka hadlo dareenka shacabkayga oo ku bitiro mar walba wixii ay doonayaan waxaad tidhi gudaha Somaliland ayaan ku hadli kari waayay marka xagaad haatan ku sugan tahay xasan oo dalka waan ka maqanahay laakiin waan imanayaa Laascaanood waan imanayaa waxaan imanayaa anigoo madax banaan oo Somaliland ahayn oo midnimo Soomaaliyeed iyo shacabkii saddex kasbadeed waaweynayay ee Laascaanood aan baraarujinayo oo aan u sheegi doono in maanta Hargeysa ama xukuumadda Korneel Biixi uu hogaaminaya aanay waxay u haysaa deegaanada aan ka soo jeedaa aanay jirin isku soo wada duuba ay tahay dhuumasho dhabar ku muuqdo madaxweynihii dhammaayay dalku waa ninka marna heshiisyada soo galaya isagoo dhuumanaya markuu shacabkii hor yimaadana luuqadda kale ku hadlaya waa ninka gabayada soo qaadanayay waxaan arkayaa nidaamkiiba inaanu ahayn wax wada lahaansho iyo dowladnimo jirin baashiba qabiil isku bedeshay oo dhulkii la kala sheeganayo madaxweynaha Soomaaliya imanayaba baa la yidhi Hargeysa xasan waa ku dhameeyo waa lankisay dadka boqolkiiba 60 waxa lagu hadlayay cunsuriyadii hab qabiilaysan bay ahayd marka waxaan door biday oo go'aansaday anigoo metelaya dadkaydii iyo deegaamadaydii Somaliland aan ku dulmanahay siyaasiyiinta Somaliland ugu metela ee Somaliland jooga ee deegaanadayda ka soo jeedana ay yihiin kuwa xulasho lagu qaato inaanay ahayn kuwa ka hadli kara waxay xuquuq lahaayeen in kuwa dareenka shacabka ka turjumi karaya rabitaanka shacabkooda in kuwa horumarka dadkooda ka turjumi karaya aanay ahayn inay yihiin lahaystayaal la soo fusho marka waxaan go'aansaday Fahima waxaad tidhi waxaan Laascaanood imanayaa anigoo midnimo Soomaaliyeed u ololeynaya ma xagga dawladda federaalka ayaa lagaaga gacan haadiyay oo dhinacaas ayaad hadda u janjeedhaa maya walaalo anigu dawladda Soomaaliyeed aan arkinin kuma aanan garaadsanin burburkii baan ku garaadsaday burburkii dawladdiisii baan dhashay dawladda Soomaaliyeed ma arag federaalna ismaan arag dareenkayga ayaa siinaya maadaama aan anigu damiirkayga ayaan ku socdaa ma aan arkinin anigu dawladda Soomaaliyeed ma aan arkinin caafimaad ma aan helin waxbarasho aniga ayaa go'aansaday inaan midnimo Soomaaliyeed oo danta shacabkayga ay ku jirto xildhibaan waad ogtahay magaalada Laascaanood si buuxda waxa gacanta ugu haysa Somaliland iyo inta badanba gobolkaasi Sool siday suurtagal u tahay inaad halkaasi ka ololeyso intaad timaadid adigoo calanka Soomaaliya sita xasan waxay suurtagal u tahay baan ku sheegayaa shacabka Laascaanood boqolkiiba 95 waa dad Soomaaliyeed waa dad Soomaalinimo jecel waa dad Soomaalinimo
ay ku weyn tahay laakiin duruufo jira awgood ayaa gaadoon geliyey waxa ku kalsoonay shacabka boqolkiiba 95 inay Soomaali yihiin xildhibaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Fahiimo Yuusuf Qoonje oo ka tirsaneyd xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood balse caawa ku dhawaaqday in ay iska casishay guud ahaan xilkaasi aad baan ku salaamanaa xildhibaan waan ka qaaday aad baad u mahadsantahay